بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهرنتي waxaan rabaa inaan salaamo guddoonka labada aqal xildhibaanada labada gole guddiga la socodka dib u eegista dastuurka guddiga madax bannaanina dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ururada bulshada iyo saxaafadda sidaas oo kale saraakiisha iyo ciidamada amniga intaas kadib sharafa iyo taamaanta inaad kala soo qayb galo xildhibaanada ama doodan waxaan aaminsanahay inaan marayno marxalad muhiim ah oo u baahan in la tilmaamo waxyaabaha keeni kara qarankan inuu hore u sii socdo geedi socodka dowladnimo oo hore u sii socdo waxaan rabaa marka inaan ku bilowdo waxaan u maleynayaa inaan ka wada dhirigsanahay waxa ka dhacay Addis Ababa kulankii ugu dambeeyay African Union oo ah meel martida Afrika ay ka wada qayb galaan si siman oo aan loo fiirin yaa cultihiin iyo heshiistihiin dowladda Ethiopia dhaqanka ay ku kacday waxa waxa dhaqan ka baxsan diblomaasiyadda darisnimada iyo maxaan ku yiraahdaa sida la rabo hadda Afrika inay wada jaan qaado marka waa cambaareynaa ficilkaas intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan aado arrimaha dastuurka dastuurku waa arrin muhiim u ah dowladnimada muddo dheerna waa soo socday waxaan taageersanahay ama anuguba aan taageersanahay in la dhammaystiro waxaan rabaa warkaas inuu aad u caddaado dastuurka in la dhammaystiro laakiin hadda marka aad fiiriso ma dhammaystiraa mise waa bedel dastuurka hadda waxa ku socda waa bedel bedelka laftigiisa waa la ogol yahay laakiin waxaa la rabaa wadiiqadiisa in loo maro maalan waxaa wax laga bedelay 45 qodob iyo 97 faqradood waxaa lagu soo kordhiyey 19 qodob iyo 94 qodob oo aan ku jirin asalka dastuurka sidaas oo kale waxaa la tiray 3 qodob iyo 26 faqradood oo ku jiray dastuurka asalka ah taas waxay noo cadeynaa waxa aan ka shaqeynayno waa inaan bedelnaa dastuurka dastuur haddii la bedelayo wuxuu u baahan yahay nidaam ka duwan dhamaystir wuxuu u baahan yahay la tashi ka ballaaran intan ayuu u baahan yahay taas waa nuqdada labaad waxa waaye dastuur waa heshiis ummadeed oo keena inuu hana qaado nidaam dadku ay raalli ka wada yihiin waxaan wada ognahay maanta dastuurka tabashooyin badan in laga qabo waa la soo jeediyay hadda waa socdaan dastuurka ujeedada loo sameeynayo inuu keeno midnimo waxaan aaminsanahay meelaha qaar inuu keeni karo dhibaatooyin aan laga fikirin oo keeni kara in la sii kala qoqobmo annagoo xildhibaano ah oo nala soo doortay oo deegaano ka kala nimiday oo ah hay-adda kaliya loo dhan yahay oo dadka Soomaaliyeed u dhow yihiin ma aaminsana inay sax tahay inaan ka shaqeyno wax keeni kala qoqobnaan ayadoo lagu xalli karo arrimahaas hab nabadeed iyo wada hadal maanta waa taariikh annagaa joogna qarankan waana la soo gaarsiiyey waxaan nagala rabaa inaan ka fikirno maxaan u reebaynaa carruurteena soo socota iyo kuwa joogaba waxaan rabaa inaan u gudbo intaas kaliya ma aha waxaa ku jira dastuurka in la bedelo qaab dhismeedka dowladnimo ee dalku uu leeyahay nidaam baarlamaani aan ku soconnay waxaan u guuraynaa nidaam presidential ah 60 sano waqti ka badanna waxaan ku soo jirnay nidaam baarlamaani ah nidaamka baarlamaaniga ee aan ku soo soconnay intaas
وهنانك اسكو كاينهاي إلى هذا قرن كان بربر كيسنا وحو باللاودي maalintii sharciga la laalay hanaankaas la laalay ayuu bilowday hadda baarlamaankan iyo kuwa ka horeeyay weli awood uma helin inay waajibaadkooda si furan oo xor ah u gutaan mar walba waxaa ku dhex jiray faragelinta fulinta waxaan ognahay dastuurkan loobinkiisa iyo hadalkiisa kama imaanin baarlamaanka waxaana la rabaa inuu ku dhamaado dastuur aan madaxweyne dooranaynin xukuumad ansixinaynin sharciyo sameeya bes nidaamka presidentialka wuxuu u baahan yahay tala intaan ka ballaaran haddii la bedelayo hanaanka dowladnimo waxay u baahan tahay wadahadal intaan ka dheer inaan galno waxay u baahan tahay in golo loo fariisto arrintan hadda socota waxaan hubaa inaan wada fahamsannahay inaysan ahayn arrin caafimaad qabta oo ka shaqaynaysa midnimo ummadeed waxay ka shaqaynaysaa dara khaas ah dastuurkan waxa keena inuu soco waayo waxaa ugu weyn madax ka dhex raadinaysa dana khaas mithaalan idin siina dastuurkan waa ogtihiin xilligii aniga madaxweyne ahay dowlad ku meel gaar ah madax ahay waa laga soo shaqeeyay hal koomo ma codsanan lagu daro kaliya waxaan ka shaqaynaynay hay-adaha loo xil saaray inay dhammaystiraan dastuurka ciddii qaylo qabta inaan la fadhiisanno meeshana lagu soo gaaray maanta aan ognahay biakmalihi inuu ka imaanayo hay-ado kale oo ay ahaadaan baarlamaanku inuu kontaroolo maanta oo dalkan xaaladda uu ku jiro aan dhihi karno 30 sano oo la soo dhaafo lama soo marin waxaan wada ognahay Soomaaliya iidoon dawlad lahayn ama dawladdu ay ku meel gaartaa soo martay lama hawaysan deegaan Soomaaliyeed in la qaato way maanta loo hawaystay ma mas'uuliyadna saaranaysan ahayn inaan waajahno xaaladaha waaweyn oo ka mid tahay dalkii oo la qaadanayo ma mas'uuliyadna saaranaysan ahayn inaan waajahno xaaladda amniga ee ka sii daraysa maalinba maalin ka dambaysa ma la socotiin ciidamadii qaranka ee muddada dheer la soo dhisay maanta xaaladooda meesha ay marayso ma la socotiin xaaladda cadowga meesha ay marayso ma la socotiin sanadkan gudaheeda in atmis ay ku baxayso waxaan maanta isku hayno meeshaan madaxweyne Sheekh Shariif ani waxaan aaminsanahay macna ma sameynayaan way adigoo mahadsan waxa macnaha sameynaya waxa waaye inaan abaarno targetka madaxweyne adigoo mahadsan aan ku aad ku sharfayno ajinta inaad ku soo noqotid waa mahadsantaa gudoomiye mudane aliya marwooyin haddaan caqligeena furi weyno oon abaari weyno waxa nagala filaya maanta waxaan ka hadlaynaa gabdhaha 30 la siiyo iyo lama siinayo ween ani waxa ila tahay aan u soo jeesano waxyaabaha muhiimka ah oo horitabinta ula qarankan kow labo saddex ali kara number 1 amniga noo ah ama number 1 waxa noo ah dalka la kala qaadanayo inaan ka howlgalno aad waxaan u dhaliilaa habka amnigu u socdo aad waxaan u dhaliinaa habka midnimada qalinka loo ilaalinayo ma aaminsan sida hadda wax ku socdaan inaan meel ku gaari karno dastuur ku ansixi karno dawlad ku dhisi karno qodobkayga u laabana in laga guuro nidaamka baarlamaaniga oo loo guuro nidaam presidential waa ognahay iska qabsiga jira ama imaakara waana soo mariyay laakiin xalku kaliya wuxuu noqonayaa in la sameeyo madaxweyne ku xigeen option kale ma jiro miya option kale jiraan option ka jiro waxa waaye ra'iisul wasaaraha madaxweynuhu soo magacaabo hadday wada shaqay waayeen ha fasax waa option wuxuuna xaqiijinayaa dan weyn oo ah
labada hay-adood madaxtooyada iyo maxaan ku yidhaha golaha wasiirada inaysan mataqaanaa isi saarayn maanta la joogo ma xukuumaddaa dhib lagu qabaa oo dawlad ka qaadanaysa ilmaan qodobka afaraad waa la gaari doonaa sagaalan ku egnahay maanta maaragtay intaasaan ka hadalno markii la gaaro ka hadli doonaa markii la gaaran ka hadli doonaa waa mahadsanta guddoomiye marka ani waxay ila tahay mudane aliya marweyn guddoomiyaga waa sharfa waana mahadsan yahay laakiin runtii waxaan u baahan nahay mas-uuliyadda nasaaran maanta ani halkaa maanta waxaa u imiday tabri'at adima inaan meeshaan ku mashquulo uma imaanin 30 maal laga dhigaa mase 20 siida laga dhigaa gurigaan aan ku xirannahay jawi gaar ah ka jira bannaankana jawi gaar ah ka jira dadku waxay dareemayaan khatar waxayna arkaan exaambullo hore u soo dhaco adduunyada kale ka dhacay marka waxay ila tahay baarlamaankan isagoo sidaana oo awoodi leh ayuu shaqayn la'yahay oo fulintu ka dhex bici la'dahay marka la yidhaha waa laga guuray oo waxaa loo guuray nidaam presidential ah waxaa ogaa doontiin talo ma yeelan doonaan aad iyo aad waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu